بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله تعالى maanta waxaan jawaabo kooban siin doonaa wixii ilaahay iga waafajiyo subxaanahu wa tacaala dadkii su-aalaha soo dhiibtay meelo badan oo caalamka ka mida waxaan garanayo waxaanan garanaynaa ilaahay baan weydiisanayaa inuu ibaro subxaanahu wa tacaala marka su-aalihii ayaan ka jawaabayaa wixii aniga fahamkeyga iyo garashadeeda iyo cilmigeyga aanan ku jawaabayaa wixii ansaxo ilaahayba xaggiisa ka ahaaday subxaanahu wa tacaala allahna ku mahadsan waxaan khaldana ilaahay subxaanahu wa tacaala beri buu ka yahay iyo rasuulkiisuba marka insha allahu tacaala su-aalaha soo sidaaya biidni illaahi tacaala wixii aan garan kara waa ka jawaabaya insha allah. bismillaah sheekh saa-ilka koowaad waxa uu leeyahay nimanka takfiirka la yidhaahdo ma lagu xukmin karaa khawaarij? aan ku celiyo sheekh saa-ilka koowaad waxa uu leeyahay nimanka takfiirka la yidhaahdo ma lagu xukmin karaa khawaarij? bismi illaahi walxamdu lilah wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama. intaanan su-aasha jawaabteeda aanan gelin waxaa aada u habboonaan lahay horta inaan isla fahmno ereyga takfiir. takfiir micnihiisu waa gaalaysiin. gaalaysiinta marka laba ah, mid khalada oo baatila oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan jidayn oo midii khawaarijta ah, iyo mid sax ah oo ilaahay amrayba oo kufaartii alla amray in la gaalaysiiyo ah. marka inay isaga keenka khaldanto ma ahan. waxaaba laga yaabaa saa-ilku ilaahay baa garanaya in isaguba uu cid u gaalaysiiyaba aanay jirin, xataa kuwa mushrikiinta uusan gaalaysiin ama isaguba qabuuri mushriga yahay. marka ha iga raalli ahaado haddaan ku khaldamo, laakiin waxaan ka wadaa haddii aad tahay qof xaq doon ah, mushrikiinta inaad mushrikiin u taqaanaa waa diin waay. zanaadiqada cadowga ilaahay taaquudka garab taagan inaad fogeysana waa diin. intaa waxaa soo raaca nimankan hadda aad weydiisay ee tiri khawaarij ma lagu xukumi karaa, kuwa hadda aad ka wado haddii ay yihiin ee dadkao dhan gaalaysiiya keligood mooye islaam kale aan ogolayn, caqiidadaas waa caqiidada azaariqada iyo khawaarijta. khawaarijta firqa azaariqa la yidhaahdee raaci naafic ibnu asraq ayaa waxay oran jireen man laxiqa bina fahuwa muslim waman lam yalxaq bina fahuwa kaafir. ninkii annagana soo haleela noo yimaada waa muslim, ninka ana soo haleelin oo anaga mid noqonna waa kaafir. haddii caqiidadaas ninkii qaata ama urur ha ahaado ama shaksi ha ahaado ama jamaaco meel degan ha ahaatee, cidda rumaysan inay keligood muslim yihiin islaam kalena uusan jirin waa caqiidatu alkhawaarij al azaariqa. marka koowaad waa ka digaynaa azaariqa iyo fahamka ay qabaan. cid kastaoo ku jirtana ilaahayna u toobad keentaan ugu yeeraynaa. kuwa ilaahay u shariig yeelaya iyo kuwa difaacaya kuwa ilaahay u shariig yeelayana waxaan leenahay intaad khawaarijnimo ka cararaysaan mushrignimo iyo zindiiqnimo ha ku dhicina. jazaakum allahu khayran. jazaaka allahu khayr aljazaa sheekh. saa-ilka labaad waxa uu leeyahay sheekh waxaan ahay qof qaangaar ah, waxaan joogaa yurub, waxaan dhigtaa iskuul. mararka qaar waxaa dhacda in aan salaamo qof dumar ah, yacnii macalimadda iskuulka, waana gaal, anigana ma jecli in aan salaamo, marka maxaan sameeyaa sheekh? bismi illah walxamdu lilah walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcadiim wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. horta masalada waa iska basiid. qofka su-aasha soo weydiiyana wuu garanayaa inay ithmi iyo dembi ay tahay. daruurina ma ahan haween ajnabiya in la taabto. waxaa aada u fiicnaan lahay su-aalaha ay igu soo jahaynayaan dadka soo dhiibaya su-aalaha inay caqiidada u badnaadaan. maxaa yeele maanta waxaa laga burburay ee laga baabaay waa dhankii caqiidada. su-aalahan waa intii murji-aduba ka jawaabi karta wey. soonka iyo salaada iyo tahaarada iyo culamada murji-ada maalin walbay ka jawaabaan. marka meesha ay sartu ka quruntay waa caqiidadii islaamka iyo tawxiidka. qofkii marka dhankaas su-aal ka hayo waxaan qabi lahaa, waxaan codsan lahaa inaad soo sii dayso. wixii aan garanaya waa kaaga jawaabaya. ninkan hadda yurub jooga, yurub anigu waa deganaan jiray,
وانا قانا يقعمها لسكو سلاما لو ما كلا دوانا دادكو وحاس عادي بأي قانا لكن دينك أقوى إلى السنكر تهدد إلهي الرميسي رسولك سنة الرميسي عليه الصلاة والسلام عدك وخص بيسائنات سلامتو مجرت بل وحان هباء أغهي نين انتي ولبا ديدي إنو إياق السلامو أي كو احترامين ويراهدين نين شرف لاتا دين دي سكرامين مد كلا إياق السلامين أي ويدين انت أدوك مسلمتي دمياه وانا هيبير وصاحبك وحيري هوينك أجنبي ما تابنو أدوك محان نو سلاميسا صاحبك وإيقا توسين دين دي وكو توسين أدوك إذن منافق باتابه ده نين دين دي سوى عن احترام وهين باتابه يرادين لابد يقف وحا شرف بدنادي كي إلى الصدي سمعة دي سدينتا إلهي نرى لقليه مركا هداد الله وحيدي طاغوتنا كو كفر دي واحد ضروري ما أنت كو جينا معلمات إنها تقعنت جلسو كافرات أما مسلمات بها أهاتي هوينة أجنبية مجران مركا إلهي وقبق ديد أنا شاك إنه سن كبر كأهين أي كاتاي دين تهدو واد كل رغميسو واد ربك كل اللي جلس جزاكم الله خير. جزاك الله خير الجزاء شيخ. سائل كسدحد وحول ليه بريهان دنبو حسوبح يقولوا لي إرادة سادعون بالحق ولماذا قارنا أي كل شيء كان تكفير أيجا إيه تكفير كما فرق أو دحية. بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلا أسوان مغلي أنا رادياشنا وان كم مغلي هذا كورنا وان كهذا محاضرة مساجد كوي alla balaagsi magaalada muqdisho aan kaga hadlay 2 sanadood miyaan 3 sanadood ka hor waagi ay soo baxayeen oo aad maaragtay u soo shacbixeen wax badan kama aqaan shakhsiyaad iyaga aan kalama kulmin kuma marka xukminaya inay takfiir yihiin oo ay qolada kale la xukmiyin dad oo dhan gaalaysiinayaan wax badan kama aqaan marka iyagana banaanka ma yimaadaan oo waxa la sheegay internetyada iyo inay ka hadlaan haday rumaysan mushrikiintu inay mushrikiin yihiin ama Soomaaliya ama Carab aadan mushrikiintaasi waa ku raacsanaa waana ku ayideena haday rumaysan muwaxidiintu inay gaaleeyihiin waa aqeedada khawaarijta waana takfiirnimada aan ku inkireyni marka in badan kama aqaan intaan ka aqaano waxa weeyaan maqlay inay soo baxeen jamaaco asaadicuun bil haqq la baxay oo dacwadooduna ay wali qarsoon tahay oo internetyada ay ka socoto marka waxaan si kooban u yiri horena haddana dhahayaa hadday dadka wada gaalaysiiyaan dawa caqiida hadda aan ka hadlaynay tacmiim al-kufri cala naas hadday mushrikiinta gaalaysiiyaan iyo wixii wala siiyey mushrikiintaasna muwaxidiintana aanay gaalaysiin waa caqiidata ahlusunna waljamaaca marka waxay yihiin iyaga la soo bixi doona insha allahu tacaala. jazaaka allahu khayr. sheekh saa'ilka afraad waxa uu leeyahay suufiyada ma la oran karaa waa mushrikiin? bismi illaah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah. الصوفية صوفية دو فربدين فرقوين كودو بدين وحن يذكر عسين إن إلهي عيدان هين لو يرتو سيد أولياء لو توصلوا دول كان دقنا وحا عان كقادرية أحمدية يا الصالحية يقار كلو إدريسية ليراد إن إيشيا ودمد أفغانستان باكستان إنديا دول كانوا وحاات الجوجة نقشبندية زهرودية إيوه كوا كلو ليرادو ماتوريدية ودن كان لو يقانا ودمada مغرب الافريقيا waxa aad u jooga tijaaniya shaadaliya kuwa la yiraahdo Turkiya jooga iyaguna qolo walba meesha kuwa kala dasuuqiye la yiraahdo jira as-suufiya waxay isku raacsan yihiin in awliyada ilaahay loogu dhawaado wax loo gowraco awliyada qabuurada lagu tawassulo in ay rumaysan kashfi wax la yiraahdo oo maqaam darajo sare ah oo ay ku arkayaan ba ilaahay subhanahu wa ta'ala qaybkiisa waxyaabaha soo dhan marka dadka ilaahay khayrka u yeertay kamid yihiin suufiya mushrikiin waaye gabadhoodu lama guursan karo gowracooda lama cunayo laguma duba tukanayo lakum diinukum waliya diin baa la oranayaa mowqifkii ahlu tawxiidku istaageen oo ilaahay amray baana loo istaagayaa wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbagdaau abadan xataa tu'minuu billahi waxdah ilaa ad ilaahay cibaadada u khaalis yeelaysaan col baan ahaanaynaa baa la dhihi mana kala duwan hadduu suufi yahay Soomaaliya suufi Ciraaqiya عفوا mid Masriya iyo mid kaleba marba haday qabuuraha ku tawaafaan ilaahay khayrkiina u yeertaan mushrikiin baa la yiraahdaa dad kala saaraa jira marka
oo yidhaahdo suufiyada qaar waa ghullaad mushrikiin baa la dhihi karaa, laakiin kuwa waxaa jira axkaamley ah oo kuwaas aan la mid ahayn qabuuraha aan tegin. ninka axkaamleyda ee suufiga waa inuu gooyaa berina ka yahay midka kale asnaamta caabudaya. hadduusan beri ka ahayn oo walaalkii uu yahay oo suufiya la isku yiraahdo, qof waliba cidda uu raacay buu yahay. marka mushrikiintu kala sooc ma leh, saa in aan lagu wareerin baan rabaa. waa ahlu shirki, waana manhajka ahlu sunna waljamaca culamaa almuslimiin ay qabaan, laga soo bilaabo kuwii hore iyo kuwii dambeba. ninkii doonayana muxaadaran ka qaban doonaa culimmadu waxa ay ka qabaan suufiya almushrikiin alqaburiya, kuwan jooga iyo kuwii hore xalaaj raacay iyo buusiri iyo ibnu carabi. jazaakum allahu khayran. jazaaka allahu khayr sheekhan. shaa'ilka shanaad waxa uu leeyahay, waxaan kasoo dirayaa su-aashan magaalada email. waxaa jira qolyo la yidhaahdo reer siyaad suleymaan oo sheegta in carshiga iyo lawxul maxfuudka ay arkaan, sidaasna dadka xoolo uga qaata. ka waran dadkaas xaalkooda sheekh? subxaan allah, bismi illaahi walxamdu lilah wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. qaala allahu subxaanahu watacaala wma kana allahu liyuطlicakum cala algeyb. waqaala subxaanahu watacaala caalimu lgeybi falaa yudhiru calaa geybihi axada. waqaala calayhi الsalaatu wasalaam laa yaclamu lgeyba axad ila allah, o kama qaala calayhi الsalaatu wasalaam. reer sayid suleymaan nimanka la yidhaahdo waan maqalnay oo email iyo dhulkaas nogob, dhulkaas soomaalida galbeed dega. waxa ay sameynayaan waa kufri bawaax ah. weliba dadka waa isu weynaysiiyaan, waxay iska dhigaan dad ilaahay doortay, xoolay ka qaataan. dad juhalaa bay iska yeesheen, way yeesheen baa la odhan karaa. meeshay soo maraanba xoolaa laga siiyaa, waa loo qalaa, waa loo loogaa, waa la soo dhaweeya, iyadoo looga baqayo inay yihiin dad ilaahay doortay, looxul maxfuudka arka oo carshiga ilaahay arka oo si gaara ilaahay ugu xiran asraar leh. waxaasu waa been weeye. ilaahay wuxuu yidhi qeybka cid ogi ma jirto alla mooye subxaanahu wa tacaala. bal ilaahay nabigiisu wuxuu ku yidhi, waxaad ku tiraahdaa anigu nafteeda dhib iyo dheef midna uma hayo. walow kuntu aclamu algeyba lastaktartu min alkhayri wamaa masaniya suu. haddaan ahay qeybka qarsoon mid ogna dhibaata iguma dhacdeen, yacni khayrka iyo wanaaggaanaan badsan lahaa. idan nebi maxamed baan qeybka ogeyn, wixii alla tusa mooye subxaanahu wa tacaala. nimankan marka beenaalayaal weeye. arrintaasuna waa uluuhiya, maxaa yeelay ilaahay keliya qeybka qarsoon og, allayna arrintaasu gaar u tahay. waa min sifaatihi wa min khasaa'isihi subxaanahu wa tacaala, liqowlihi tacaala qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algeyba ila allah. waxaa ku tirahdaa dadka nebi allow, qeybka qarsoon ee samaawaadka dhulka ku qarsoon cid ogi ma jirto alla mooye. ilaahay rasuulkiisana ma sheegin qolo loo faydayo kashfi oo daawanaya carshiga iyo looxul maxfuudka. waana been iyo barobagandadii suufiyada iyo mushrikiinta. waxaasu waa waxay idinku duleysteen. qofka ilaahay rumeeyey dee kuwaas waxba kama qaadayaan. qofkaan alla rumeynaya mushrigana waa u duleysnaanayaa, iyaguna naarta u raacaya hadduusan toobad keenin. iyaga laftigoodana waxaan ugu yeeraynaa atowba. addoommadaad la mid tihiin, ilaahay usoo laabta. addoommo masaakiina tihiin, ama reer sayid suleymaan ha la yidhaahdo ama reer sayid faarax ha la idin yidhaahdo. addoommada bini aadanka aad ka mid tihiin, waxba ma tari kartaan. ilaahay wuxuu idiin abuurtay keligii inaad caabudaan. toobadkeena, adinku aalihana ma tihiin, ambiyana ma tihiin. marka iyaga iyo dadka raacayba waa lunsan yihiin. lunsanaantooduna laba ma ahan ee waa mushrikiin, waa kafara nimanka taaquudkaa. kuwa raacay ee rumaysan inay nimankani carshiga ilaahay daawadaanna waa jaahiliya mushrikiina oo ku lumay dadkan ee caabuday uga baqay sidaas, dabeedna ku u hogaansamay. inay alla usoo laabtaan baan ugu yeeraynaa subxaanahu wa tacaala. inay soomaaliyiin ku badbaadi maayaan alla hortii, maadaama ay allah u sharig yeelayaan oy rumaysan yihiin ilaaha hayr allahi jala waculaa. marka waxaan mar labaad mar saddexaad ugu yeeraynaa inay ilaahay u toobad keenaan reer sayid suleymaan iyo kuwa iyaga daba socdaba. wajazaakum allahu khayran, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. sheekh, saa-ilka ugu dambeeya soo koobeynaa soo xirina. saa-ilka saddexaad waxa uu leeyahay, dad baa waxay rumaysan yihiin in nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu caleyh uusan dhiman ee uu araggeena ka qarsoomay, sida aawadeedna ay bannaan tahay in loo yeerto. aan ku celiyay su-aasha sheekh. saa-ilkan waxa uu leeyahay, dad baa waxay rumaysan yihiin in nebiga sala allahu calayhi wasalam uusan dhiman ee uu araggeena ka qarsoomay, sida aawadeedna ay bannaan tahay in loo yeerto. subxaan allah.
بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إن إلهي رسولك يسوي الشيغان ودمانيو الله الشيغان نبي يسوي ودمانيو النبي قال نول معلمت النبي قال ننتين عليه الصلاة والسلام خليفك مسلمين كواد صاحبك النبي كواد إسلام كان يعني قفك نبي قدك الله قالي صاحبك قدك الله قالي الله كو قريبة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو النبي يقول هذا خليل صلى الله عليه وسلم أبو بكر بن خليل كدي الله يصاحب سكة أيه وعير من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نيكي محمد عابد جريو محمد وعد انتي صلى الله عليه وسلم. نيكي الله عابد جريو إلهي وأنول يحي ما ندي من أيو دبنا وحو آخر قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد maahan ilaa rasuul aanu soo dirnay mooye hortii waxaa gudbay rasuul fara badan haddii uu dhinto ama la dilo sala allahu calayhi wasalam ma waxaad u laabanaysaan ciribtii iyo gaalnimadii hore. idan meel kalena alla wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala innaka mayitun wa inahum mayituun. adigu waad dhimanaysaa nebi allow iyaguna way dhimanayaan. idan nebi maxamed waa dhintay sida saxaabadii nebiga rumaysnaayeen annaguna aanu rumaysannahay. araggeena keliyuu ka qarsoomay maahana si caadiya oo bini aadamku u dhintaan ayuu u dhintay sala allahu calayhi wasalama. adduunyadan kuma soo noqonayo caalamkan waxa ka socda iyo maamulkeedana wax shaqaa kuma leh waxaa maamulayo iska leh allah waxdahu jala jalaaluhu. marka ahlu shirkiga waxay raadinayaan qiil ay rabaan inay ilaahay rasuulkiisa ku caabudaan oo ay ku yidhaahdaan yaa rasuul allahi akithni yaa xabiib allahi irsuqni yaa rasuul allahi akithni rasuulkii allah iisoo gurmo yaa rasuul allahi madad yaa xabiib allahi madad iyagoo nabiga caabudaya calayhi salaatu wasalaam. waana shirkul akbar. nebigu addoon buu ahaa ilaahay baa oofsaday xaqii alla usoo dhiibana addoommada waa gaarsiiyey calayhi afdalu salaatu wasalaam. adduunyadana ma joogo alla waa oofsaday wuu dhintay saxaabadiisi ka dambaysana waa dhinteen annaguna waan dhimanaynaa. rusushii oo dhan way dhinteen ilaa nabi ciiseoo nool isagoo aakhiri zamanka soo laaban doona isaguna waa dhiman doonaa. kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walibaa waxay dhadhamin doontaa geerida. idan nebi maxamed waa dhintay u yeerashada nebiga loo yeertaana waa shirki waa addoon ilaahay oo dhintay calayhi salaatu wasalaam. ilaahayna wuxuu yidhi waman yadcu maca allahi ilaahan aakhara laa burhaana lahu bih fainamaa xisaabuhu cinda rabbih inahu laa yuflixu lkaafiruun. wa qaala subxaanahu wa tacaala walaa tadcu min duuni illahi maa laa yanfacuka walaa yaduruk fain facalt fainaka idan min aldaalimiin. ha u yeeran ilaahay sokadii qof aan waxba kuu tari karin waxna aan kuu dhibi karin. haddii aad sidaa yeesha nebiyow adigaa daalimiinta ka mid noqonaya ee mushrikiin ka mid noqonaya. ilaahay rasuulkiisa macsuum buu allana waa ka ilaaliyey ilaahay khayrkii in loo yeerto. ninkii nebiga u yeerta ama nebi ibraahim u yeerta ama nebi muuse nebi ciise u yeerta ilaahay buu u sharig yeelay. waana shirkigii nebiga ayuu la dagaalamay ambiyada kalena ay la dagaalameen. ilaahayna qur-aanka usoo dejiyey in la burburiyo annaguna aan u taagana inaan la dagaalano. yaa rasuul allah yaa nabiy allah akithni yaa malakul jibriil yaa nabiyullahi ibraahim yaa muxamed khayr alanaam akithni maa lii laa ajidu man aluudu siwaaka cinda xuduudi alxaadiidi alcamimi. waxaasoo dhan waa kufri waa shirki waan la dagaalamaynaa. waxaan ugu yeeranaa tawxiid yaa allah yaa da ljalaali walikraam yaa arxam araaximiin. allah yeerashada iskale baryada allah iskale magangalka allah iskale ugowricidda allah iskale adeecidda iyo hogaansamidana alla keliya iskale laa hayr nebiga walaa malag walaa nebi walaa sheekh walaa weli midna looma yeeran karo ila allahu waxdah. wahada diinu muxamedin calayhi الsalaatu wasalaam faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur. wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.